si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee Radio Kulmiye fadlan subscribe saar janalkan. warwaadigan kashkashlaynee kelmadaad mar tiraahdo midii kaabir ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaanee kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi now dee dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeerya isku keenay koroodaanana kolkooda hooy kurbadii hayta sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaar yahay ma kayga niqatala dadku waa kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino safarkii danaha Soomaaliyeed u soo jeedayo samaquwara soo noqod wanaagsan war maanta madaxweynaha soo noqday miyaa soo dhaweynaysiin waraa madaxweynuhu waa safri jiray umana adnaan heesi jirine mahalaatidu hura la dhacay baad ugu heesaysaan madaxweynaha waad mutaysatee magacaaha jiro maandheeyow madaxweynaha safaarada u soo gadayaan maqlaye ma noo keenyay kollayba waxaan hubaa gacan maran inuusan la imaan waa soo socdaa kow dheh waxna waa sidaa laba dheh ambaroy ha fududaan samiryeele weliga warnimayahow waxaan maqli jiray igu filan fargeedaysanoo lii falfaliyaaye waxaa igu filan inuu madaxweynuhu yidhi baddayna kenya kala hadli mayno yaa falfaliyada cunashamaa igu dambaysay war ma waxaa noqoteen carruur aabbahood u yimid wadinka raaraaciye warwar ma haysiine magaalada muqdisho waxaa ku shiray 3 madaxweyne war maysa dumada wiilan shir waayaan dariska kadeeyay maskadiin leeray kusmaay ku dhiidi mooshiidiya war 3 kismaayood ka hadli mayna sharcina ma naga dhagaysaa gafina waryaa aga awowgi la gubeega masayidkan sharci ahayn war eedeen liyaatan reer waamo 7 jar war naga dhagaysta waa fududihiin madaxweyne cali mahdi madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh bay ahaayeen aniga waa markii igu horeysay oo aan daawado 3 madaxweyne oo shiraysa beenteen nin leh waxay ka wada hadleen diidmadii sheekh shariif kismaayo loo diiday iyo maqaamka muqdisho iyo waardiyeynta dimuqraadiyadda urdanka war sadiida madaxweyne oo shiran warta fayleeyeen laakiin turuubsho inoo biiga ka darnay hayti war anagu 3 madaxweyne ma lihine hal madaxweyne aan leenahay war adigu Soomaaliland hadday dhalatay afaaraan ka bax maday isaaqow beentan iska dhaaf madaxweynayaasha ma turbayne warnimayo anigu beentaynin leh 3 madaxweyne waxay ka wada hadleen wadadii laga celiyay madaxweyne cali mahdi warkii nuunu tan qabasho lahaynba waxaan ku ogaaday islaamaha dadka xamanaya dhigi jiray beentaynin leh beentayn ag leh waxa la yiri raq walba rageed warnimayahow cali mahdi iyo sheekh shariif maqaamka muqdisho waa ka hadli karaan laakiin xasan sheekh ayaa maqaamka muqdisho ka hadlayo cidna ka yeeli maayo sababtoo isaga madaxweynaha markii maqaamkeeda la duudsiinayay war maqaamkan muqdisho ka maqan waa maxay qowlanow itiraafka hargeysa ka maqan ma waay ambaray hawareerine kaasi waa muqaddis waran horta reer galmudug weediyada siin qorade geekana gaylaha siin kuweerti lanki haafaay hata koor ari hilka galmudug wareeji oo wasiirka arimaha gudaha ku wareeji ari tush yari geeka tush wallahi aan leelayni billahi yari ma yari kasaasana nimanka aniga ku wareejiyay wakaaladii oo 3 bilood meesha anaga u fadhinay ma ayagaan u fadhinayna habad kuma soo maqnay wallahi aan leeyalayno oo billahi leeyalayni waa ma kala soo laabtay hadda la joogaana madaxweyne ka meesha ay itiraafa galmudugay waa inoo saas wasiiradiyadana way shir degdeg inay isugu yimaadeen hoosha galmudugna meeshadii bay ka soconaysaa saas ula socda Soomaaliya daadtii reer galmudugow socda hore loo soo yeeri warnimayo waxaan ku riyooday macallinkii markii hore odaga iibsaday oo marka la rabay jeebka loo buuxiyo wuxuu yiri nabadii nolol waan ku wareernay madaxweyne xaaf baanu soo dhaweynahaynaa war saas ma ulmaado gooljo magoradaas oo noo dhagan sooynayow soo naqsahayna madaxweyne haafan soo naqsahayna yeera
war waa waalantiina waxaa la yidhi ragna waa isgediyaa geelna waa galgashaa marka xaaf haddii ballantii looga baxay asaguna waa ka bixi karaa warriyo sheekada galmudug ma igama quluntoo igama gubatooba anu waxaan idiin sheegayaa ama xarreeya ama galgashe galmudug khayray u gacan gashay war adugu ama galgalo ama hinraage xaaf hadduu xataa gelinsoor geed qurxoo ku yaallo hoos fadhiisto waa madaxweynaha galmudug warwarka xaaf waxaan ku riyooday axmed madoobe aad ugu farxay war anna waxaan ku riyooday siciidan iyo xaaf oo israacay oo caleemasarka axmed madoobe ka qayb galay axmed madoobe caanaha lagu shuba amba alla caleemo saare car waa ninkii ragoo kismaayo ugu tago warnimayo waxaa la yidhi nin jacayl haleeloo qalbigu gees ka macaluulay oo dhabarka tuutuujiyo daallan baana haye haddaan madaxda soomaaliyeed fiirshay dhaqankeeda nimankii la wada doortay oo xilalka loo dhiibay mid waliba mid buu doonayaa inuu ka tuuraaye bal maxaan samaynaa kursiga way iska ridayaan bal maxaan samaynaa kursigu way iska ridayaan waradeer madaxweynayaasha imaka waxa weeye aan mudnaado maalkana aan dhaco magacna yan waayin warnimada waxaa la yidhi hadduu macallin seexseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meel aado qalad maaha goorta ardadu inay ciyaartaaye ilma hooyood maqantaana waa sidoo kale war madawiinaga aanelma mogano kooyi rooga war xildhibaanada jawaariyaa ka maqan inay iska cayaaraanna waa garto may dheega jiray geel jinjingo andaage oo ambara jinje oo jawaari oo xasuusate warnimayo horta xildhibaanadan aad sheegaysaan waaba la waayey anugu waxaan qabaa in la baafiyo war xildhibaanadu ma maqnee waran iyo gaashaan ayay isu bedeleen war waran iyo gaashaan maxaa la yidhaa mawaalanyaa ninkaan wasiir xildhibaanaha la yidhaa war adamagoradaasa wasiirka hooba gafta xildhibaankan gafta waa leere war heedha war ma haysiine magaaladan waxaa korontada geliyaa waa kaberiga beeko may dheega jiray ninbay meeli bugtaa ninbay meeli bugtaa kanna meel bay bugtaa warwar ma haysaane ina bogtiin waxaan ku garanayaa maayarkii hargeysa ayaa idin sheegay wuxuu yidhi qofka muqdisho ku nool bisadda hargeysa joogta ayaa ka nasiib roon war maayarkaanaad sheegaysaa walaqad karramnaa bani aadama miyaanu maqal kutubka boon shalfeedna ku waranhe waxaa la yidhi qofka markuu hadlo ayaa caqligiisa la ogaadaa war maahan sidaa nin ragii carabkiisu ku rahman yahaa layidhi war saas ma walaagoolyaalo aan raba dafee leere war waxaa hore loo yidhi qof aan xishoonayn dagaal xeelad kama hayso war ma haysiine taariikhda markii ugu horraysay ayaa xarakadu ballidoogle maanta isku biimayda barqadii kow baabuur qaraxyaa bug ayay ka siisaa layidhi laakiin markay isku dayeen inay orod ku galaan ayaa cirka iyo dhulkaba laga weeraray cimaamadaydii maaragtaa ka dhacdaa layidhi oo ciidanka ballidoogle joogo canshuur ma bixi jirin miyaa mashaar aakhira laga jiray waana sugu waayaan yoona noloshayda taariikhda canshuur xero ciidan laga doonayo ma arag war ballidoogla waa fog yahaye kulliyadda jaalasiyaad agteeda ayaa kolonyo talyaaniyo lagu qarxiyaa la yidhi hadda ookiyaashaydii maaragtaa ka dhacday ayuuto yaka boorenade warmee waxay ku jireen kaarajuuju ku sibeena nisana aaltano aku basata non si torno oo kaale talyaaniguna maamison bay ku biireen ma tahriibayaashii maalta laga soo celshayba war hadda ka hor xilligii dawladdii kacaanka oo ruushka lala dagaalsanaa ayaa nin talyaaniyo koronto ka shaqaynaya magaalada muqdisho nin soomaaliyeedoo caligaal dalilayaa toorrey kelida ka gelsu ka soo riday caloosha ayuu too u yidhi oo qaye ruushaanu qabaaya talyaani uga naqayu wadaadoobo iishileerawata kooriya oo kobliguro unjeeda talyaani meere kome fashiyaamo yeeri kobliguro unjeeda kuulaga yeerti kome indiyaamo yeeri karsudeekata arwar mahaysiina sacuudiga tan ka dhacday dhagay faraa ka dhacdaa layidhi kabtayda maaragta arrintii waa dhaaftay kaarahaygii ma aragtaa ka dhacday salmaan iyo waxbaa lagu salliday saaqidkuu dhalay war sacuudiga xuutiyiinta oo isku taabtaabtay meydkiisa iskordhaweenaa la yidhi warwar mahay sida maxaabiistaa ka daran war sacuudiga waa tiilayeen somalilan buu aqoonsadae maxay ciidan ugu diri waayeen weli adeer safaaradeedii lama furin war safiirkii soomaaliya magacoodii sacuudi dowladdii sacuudi soco wariya yeerti maka ogoonsaniinuuna war adeer somalilan bay safaarad siinaysaaye ma laba safaaradood bay sacuudigu bixin karaan sacuudigu hadduu dulmiga naga dhaafi lahaa mar hore xuutiyiinu ma gumaysateena maanta ciidamo ka difaacan u diri lahay warya misaarmadii mooradii ooda mooradaday oodasalarey moorartiidaba moodan may sacuudigan gargaaras warya war adeer ciidankiina uma baahna sacuudigii annagaa u dirayna ciidan warnida waxaa la yidhi geyigaaga ruux doonaya iyo guunyadiiyo maalka oo dhaqangadoon kula rabiya inaad ka gaabnaato intuu gebiga soo fuushan yahay geylanka wacane soomaalay gamaayo
iyada hurdada maaha shay garahe wixii aanad geyin oo dhan waa lagu gumabaaye gabaca iska qaadiyaa mar qora gaar lagaa qabanay warnamayo lankunku kuuya iska wabadaana leeyaan runtiisu kuuya ma warkeen la arkaa uhuru odagu ceejiyey waa jabaan dhahnay inaga celiyo wariyada waaja nabnagaani bana waryalankan soo may war kuugiidina ma qaniin inaga dhaxba war xaafadu saari wariya adal jumhuuriyadeedu oo maqan qof xanaaqsan xigmad ma leh xishooda dantiino midooba wariyada ilaahay waryaa xil jeclida iska daaya oo sharciga ilaasho war magaaladan qashinka ka daaya waryaa nalaynina war maxaa taa waa wareydhaha waryaa ninka madaxa ku dhifan